Turkigu waxa ay dhawaan bilaabi doontaa inay dhoofiso diyaaradaha lagu magacaabo Hurkus Balansi ee gurmadka iyo kuwa tababarada loogu talagalay misna hubaysan. waa qaab casri oo horumarsan ayaa loo sameeyay diyaaradahan, balse ilaa iyo haatan si rasmi ah looma shaacinin dalka ay u dhoofin doonaan. sida laga soo xigtay maamulaha guud ee shirkadda lagu magacaabo TAI ee howlaha military ee dalkaasi. maamulaha guud ee shirkaddan Temel Kotil waxa uu sheegay idaacadda gaarka loo leeyahay ee CNN Turkey axaddii in 12 diyuuradood oo noocoodu yahay Hurkus ay dhawaan dalalka dibadda u dhoofin doonaan ama ka iibinayaan. mar la weydiiyey magacaabidda dalka ay ka iibinayaan ayuu ka gaabsaday, waxaana uu sheegay in aan weli heshiis ku dhicin, sidaa daraaddeedna uusan weli magacaabi karin dal ahaan cidda ay tahay in laga iibinayo. shirkadda TAI ayaa soo saarta diyaaradaha lagu magacaabo Hurkus ee loogu talagalay gurmadka iyo tababarada ciidanka, ayagoona weliba qaab casriyeysan u samaysan. marka laga soo tagay inay yihiin diyaarado lagu tababaro duuliyaasha, sidoo kale diyaaradahan waa kuwa ay casriyeyntooda ku baxday miisaaniyad aad u hooseysa, balse si adag u shaqayn karta, ayadoo qaban karta howlo ay ka mid yihiin fulinta weerarada fudud, howlgallada sahminta hubaysan, maadaama iska caabin karta weerarada cadowga muddada ay howlaha sahminta ku guda jirto. weerarada fudud iyo sahminta hubaysan ee ay fuliyaan diyaaradahan waa mid ay ku bixi karto miisaaniyad fudud, iyagoo aan wajihi kara hanjabaadyada cadowga ee halista badan, kuwaasoo weliba awood ahaan aad u sarreeya. arrintani waa mid waaqic ah, misna ku turjumaysa xaqiiqada guud ee goobaha dagaalka wakhtigan, ayadoo la ilaalinayo awoodda tababareed ee horumarsan ee ay leedahay diyaaraddan. waxay sidoo kale 7 xarumood ku leh dibadda. haddana sidoo kale diyaaraddan waxay kaloo kuu sahlaysaa una fududaynaysaa qofka adeegsanaya inuu diyaaradda ku qaado xamuul culayskeedu yahay 1500 oo kiilo, taasoo u dhiganta 3306 rodol, looguna adeegsan karo fulinta howlgallo dhib badan iyagoo ku duulaya weliba joog sare oo hawada ah. xataa goobaha juqraafi ahaan aysan sahalka ahayn, waxayna howlgallada fulin karaan habeen iyo maalin. awoodda xamuulka dibadda ee diyaaradda waxaa ka mid ah bambooyinka noocyadooda kala duwan iyo rasaasta qoryaha laga rido, sida gantaalada ridada dheer ee loo yaqaano atintaangiga, gantaalada lagu magacaabo untas, sidoo kale gantaalada la yidhaahdo cirat ee loogu talagalay laysarka iyo culayska waxtarka leh. waxaanay soo saartay baaritaanada warshadda difaaca iyo maxadka horumarinta ee hoos yimaada golaha cilmi baarista sayniska iyo teknolojiyadda ee Turkiga. waxa ay sidoo kale soo bandhigi doontaa 2 nidaam difaac oo isugu jira 12.7 milimtir iyo 20 mitir oo ah qoryaha nidaamsan ama gantaalaha noocooda ballacu gaarayo 2 mitir iyo 5.7 inji ama bombooyinka ee tababarka loogu talagalay. madaxa shirkaddu waxa uu rajo ka muujiyey dhoofinta shirkadda TAI ee diyaaradaha qaybta howlaha sahminta xeeladeed iyo helikabtarada weerarada ee attack, ayagoo doonaya inay u dhoofiyaan dalka Philippines, balse arrintan waxa ay ku xiran tahay ogolaanshaha dhoofinta matoorada diyaaraddaas oo Maraykanka laga keenayo. madaxa shirkaddu waxa uu sheegay inay u weecdaan dhanka Ukraine oo uu iskaashi military dhanka warshadaha difaaca kala dhexeeyo, ayagoo la galay heshiis ay kaga iibsanayaan matoorada diyaaradaha attack 2 iyo helikabtarada Ta-969. dhinaca kale waxa ay Turkigu ka hadleen talaabada ugu dambeysay ee Maraykanku si rasmi ah dalka Turkiga uga saaray barnaamijka diyaaradaha dagaalka ee F-35, kuwaasoo la filayay Turkigu inuu qayb ka noqdo. waxa uu yidhi F-35 haatan jadwalka nooguma jirto, balse diyaaradda lagu magacaabo TVX haatan wixii ka dambeeya shaqadeedu waa hawl u taala shirkadda. waxa uu yidhi isagoo ahmiyadda diyaaraddan ka hadlaya waa inaan si dhaqso ah loo dhammaystiro howlaha diyaaraddan. waxa uu xusay ahmiyadda diyaaradda iyo inay hadda ka muhiimsan tahay sidii hore, loona baahan yahay si dhaqso leh in loo soo saaro. Kotil waxa uu ka hadlay baahida loo qabo qorista injineero cusub oo shirkadda TAI ka caawiya hawshan, waxaana uu ku casumay injineerada da'da yar ee xiiseynaya barashada iyo ka howlgelidda warshadda difaaca inay la shaqeeyaan shirkaddooda. waxaan hadda haynaa 4000 oo injineer oo ka shaqeeya TAI,
waxaan u baahannahay inaan kordhino tirada injineerada ilaa 10,000 oo injineer aan gaarsiino waxa uu intaasi ku daray inay baahi weyn u qabaan hadda 6,000 oo injineer kuwaas oo dhammaantood ay u baahan yihiin Maraykanka iyo 8 waddan oo kale ayaa wax makama jiraan ka dhigay heshiiskii 2006 kaasoo Turkigu qayb uga ahaa barnaamijka diyaaradaha F-35 waxa uu qorshuhu ahaa inay hawlgalaan soo saarista diyaaradahaas iyagoo sii hormariyay lacagta 100 diyuuradood oo ah F-35 kuwaas oo ay heli lahaayeen dhowaan balse heshiiska Maraykanka ayaa burburiyay wakaaladda wararka ee Turkiga Anadol ayaa arrinta ka soo xigatay sargaal ka tirsan wasaaradda difaaca ee Maraykanka oo sheegay isbuucii la soo dhaafay Washington waxa ay ka saartay Ankara barnaamijka iibinta diyaaradaha F-35 ee sanadka 2019 la saxiixay waxay ku doodaysaa gantaalada difaaca cirka ee Ruushka ee S-400 kuwaas oo ay soo iibsatay Ankara uusan marnaba la jaanqaadi karin nidaamyada NATO sidoo kalena ay u adeegsan karaan Ruushka arrintaas inuu si qarsoodi uga helo xogta iyo faahfaahinta qarsoon ee diyaaradaha F-35 Turkiga ayaa si kastoo ay ahaato waxa uu dhankiisa ku adkaysanayaa in S-400 uusan ku milmi doonin nidaamka difaaca ee NATO isla markaana uusan khatar ku noqon doonin xulafada maadaama Turkigu qudhiisu NATO uu qayb weyn ka yahay